أخلاق مركي علماء قيحيين وحيدان صدح ركن بلاضهي أما صدح جيس بيك كوبنتهي قضبك كواد waxa weeyaan inaad xidhiidhiso cidii ku geysah qofkii xiriirka ku jara ee hadalka ka goosta ee waxa weeyaan deeqda ka jara ama waxa isku ogeedeen ka gooyeen inaad xidhiidhisay waa koow qodobka labaad qofka ku qadiya inaad wax siiso qodobka saddexaadna inaad ka saamaxdo oo u tanaasusho qofka ku dulmiyay qofkii ku qadiya inaad wax siiso qofka ku gooyena aad xidhiidhiso qofka ku dulmiyayna aad cafiyo saddexda qodob bay ka koobantay akhlaaqdu bay yiraahdeen taa waxa tibaaxaya nabigeena kaleey salaatu wasalaam saxaabiga loo oran jiray Uqba ibn Amir al-Ansari ayuu la hadlay nabigu wuxuu yiri yaa Uqba ibn Amir sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu 'amman zalamak oo saddexda qodob uu kula talinayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka ku jara oo xiriirka ku jara si guud haduu doonayo ku gooyo ama si gaar ah ku gooyo qofka xidhiidh buu nabigu kaleey salaatu wasalaam oo tii uu isagu kula yimid mid kamid ah ugu jawaabina xidhiidhi waayo islaamku ma yaqaan ma itiri waxa tiriba lagu yiri yaad ka badisaa fartaad qaadaba lagu la qaad waan kula gurinayaa islaamku ma yaqaan tanaasul buu yaqaan ay cafi iyo saamaxad qofka ku gooyo xidhiidhi qofka ku qadiyana wax si qofka ku dulmiya ama kugu tacadiyana saamax buu nabiga kaleey salaatu wasalaam